basadir waxa weeye comedian Tansaaniyaana oo maaragta runtii barnaamijyadaas in badan ka shaqeynayay. magaca basadir ninkan maadaa u bixiyay magaciisa rasmiga ah muxuu yahay? magaca basadir ana u bixiyay hadda rabaa inaan u walqalo meel baadiya ah halkaas oo aan deganahay rabaa inaan u walqalo magaciisa rasmiga waxa la yiraahdaa King Bus baa la yiraahdaa sababta aan magaca basadir ninka ugu xushay horta runtii waa magac aanan wax badan xitaa u fakirin waa siiriyay waa u bixiyay magacu hal mar uu soo go'ay niyadeydu ka soo go'ay waxaan u bixiyay marka ugu talagalay isla magacaas ninka waa ku banaan yahay alla ilaahay bas weeyo ninka basadir u bixiyay sidaas aan ugu bixiyay bidaar buu leeyahay intaan ka arkay hal muuqaal oo uu bidaar lahayn baa jira dabcan markaasna waxa jira timo qolyaha maaragta timo tirayaasha ay saaraan oo Afrikaanka marka dabcan markaas halkaas ka soo saartay laakiin inta kale oo aan arkay ninkaas bidaar buu lahaa. goormaad marka basadir adigu aragtay maxaase ku xulatay in aad qaadatid barnaamijyadiisa oo marka aad af Soomaaliyeysid? basadir niyo barnaamijyadiisa waxaan ku xushay ninkaan inuu yahay nin active oo qaylo badan oo jilaaya oo hadii ay ku roon yahay farshaxamaysta oo dadka si fiican uga qoslin kara sidaasaan ku xushay waxaana xushay sanadii 2020ka wariba aduu bishii 8 meelaha. waayahay marka aad xulanaysay basadir ma barnaamijyadiisa ka heshay uu asagu soo saaro dabcan waxaa jira majaajilaystayaal kale oo isaga la mid ah midda kale adiga basadir ma istaqaanaan? aniga basadir barnaamijyadiisa waan daawaday dhowr xabba markaan ka daawaday waxaan u arkay inuu yahay shakhsi aynu maaragta barnaamijka isla qaadi karno oo maaragta dadka kaga qoslin karo oo maaragta soo jiidasho leh sidaasaan ku xushay sidoo kale aniga iyo basadir waanu isnaqaanaa. ma wada hadasheen weli? waan wada hadalnay weliba WhatsApp-ka waan ku sheekaysanay oo waa igu jira. markaad la hadlaysay oo kow aad isbaranayseen see isu barateen? kow markaan isbaranay nin xulufadiisa ka mid ah oo barnaamijyada la sameeya oo inta badan asxaabteedu u garan og tahay Farxaan Diraac oo runtii nin dhalinyaro aad u maaragta firfircoon ah ninkaas baa igala soo hadlay baytkeyga wuxuuna ii soo diray ninka lambarkiisa WhatsApp-ka sidaas aan kula hadlay waxaan u sheegay inaan barnaamijyadiisa sameeyo oo cod Soomaaliya u bedelo dadka Soomaalidana in badan ay jecel yihiin waliba si aan dadka oo ka dhashay Tansaaniya ay tan u jeclayn inay u jecel yihiin kuwa Soomaalida ah. muxuu ku yiri markaa? aad buu iga mahadceliyay maadaama uu asaga lafkiisu baytkeyga ku xiran yahay oo daawado wuxuu ii sheegay inuu baytkeyga ku xiran yahay oo daawado sidoo kale wuxuu aad iyo aad ula dhacay in intaas oo taageero ah oo Soomaalida ku yeesho dadka Soomaalida ku yeesho magacinta leeg maadaama asaga YouTube-kiisu uu yahay mid aan dad badan ku xirnayn Facebook page-na uusan lahayn wuxuu iga codsaday in aan u sameeyo WhatsApp oo maaragta Soomaali ah. marka barnaamijyadan dabcan sida xustayba Farxaanow dad badan baa daawada marka ma kaligaa baa sameeya mise cid baa kula samaysa? barnaamijka aniga sameeya waqti baan geliyaa runtii juhdi badan baan ku bixiyaa marka kaligay baan diyaariyaa barnaamij program baa jira anigu sida hadda Farxaan ahaan aan kula hadlayo baan u hadlaa marka ay qofka dumarka marayso dabcan markii aan codka dhameystiro oo su'aasha hadalka aan rabay aan iraahdo baan yareeyaa oo maaragta waxaan u bedelaa ilmo yar ama maaragta cod hoose oo khafiif ah. waayahay ninka basadira marka hadaladiisa ma toos baad u tarjuntaa mise waad qiyaastaa wuxuu leeyahay? basadir barnaamijyadiisa turjumaanna kaba marna haddii sida uu yahay lagu turjumo oo sida ay u soo dhigaan iyagu lagu turjumo xiisa ma yeelanayo dabcan marka waxaan ka dejiyaa dhaqankoodii iyo hadalkoodiiba waan ka rogaa dhaqan Soomaaliya iyo hadalkii Soomaaliga ahaa oo waliba mahmaahiyihii iyo gabayadii intuba aysan suugaanta aysan ka maqnayn baan saaraa inta badan aniga luqadiisa inta badan maba 100% waa fahamsanahay kuba dhahayo oo ma fahamsani laakiin haddii sida uu yahay loo turjumo dabcan xiisa ma yeelanayo waxaan marka qoodha iyo xerada iyo marka la leeyahay iyo maaragta in gabadha dalay weeye kaliya waxaasna Tansaaniya kuma hadlaan mana yaqaanaan. waqti intee leeg bay kugu qaadataa marka in aad barnaamij noocan la samayso oo marka dadka sida uga qosliso? barnaamijkan markaan qolkayga tagaba waa iska samayn karaa wax weyn iguma qaado 30 daqiiqo ama 20 daqiiqo ama ugu banaan hal saac midka ugu dheer muuqaalada isagu maalinkii waxa laga yaabaa 3 inuu soo saaro ama adigu labadii bariba 4 muuqaal oo soo saaro aniguna marka kuwiisii hore baaba iga badan oo hadda markaan eego kuwa badan oo maaragta wali aanan fasirin baa jira marka kayd badan baa ka yaala oo maaragta kuwaas kale aan aad u isticmaala kuwaan dambe cusub waa xula dabcan kuwa waxaa jira aan dhaqankeena ku wanaagsanayn oo aan la soo qaadan karin sidaa darteed